Door wanaagsan saaxiibayaal, Jimco wanaagsan sida odhantii meel kasta aad dunida ka joogtaan maalin wacan. Intaa kadib waxaan rabaa shaxdan kooban inaan maanta idinla wadaago. Fadlan shaxda markay kusoo gaarto daawo inaad daawad wax kaa saacaysaa inaa meelaha qaar wax ka bedel isleedahay in lagu sameeyo ku fiican tahay ka sameyso sababtoo ah sometimes ama waxaad aragtaa xilliyada badan kooxaha qaar oo 22 door saar iyo koox 5 senti saaran tahay kooxdii 20ka labada door saaran sometimes inay badiso ama ay kooxda kale barrage ku celiso marka waxaana waa banooni sometimes nasiibka dadka saacida marka please fikirka ku darso intaas waa iga talo tan kale waxaan rabaa maanta events waa 7 kooxood maadaama aysan jirin ciyaaro badan marka Serie A ciyaaro qaar ka jira iyo maxaan ku yiraahdaa waxaan ka soo qaatay iyo ciyaaraha kale oo baaxad weyn oo laga ciyaaro dunida inkastoo FA Cup uu jiro sida Man City ay ciyaarayaan iyo Arsenal laakiin waba ka qaleyba kulankaas marka kuwa kale iska soo qabsaday marka kuwa kale waxa ugu horeeya kooxdan Netherlands Eerste Division ayaa kaga soo xulay marka waxa ugu horeeya kooxdan Beck ZZ Wolle ku qoran tahay Oza marka labadan kooxood hadda sida marka qofulada u saartaa u jeedaan way shakinayaan wax ka bedel ay ku sameeyaan marka waxaan leenahay labadan kooxood maadaama kooxda kale sida u jeedid badiskeeda Oz ku qoran tahay badiskeeda waxaa saaran $13 halka barajada ay saaran tahay $5 ku dhawaad kooxdan barajadeeda $15 saaran badiskeedana $1.19 saaran 19 cent waa only marka waxaan rabaa kooxdan hore boqolkiiba 99 waxaa la rajeynayaa kooxdan badin karto oo ka awood badan tahay marka waxaan leenahay kooxdan aad badinayso sidoo kaleeto German Bundesliga waxaa jira Rasenball Sport Leipzig oo Qatar ah iyo Stuttgart u jeedaan marka labadan koox sidoo kaleeto isku awood maahan wixii dhici raba horta markasto maba laga shaki karo kuwaas laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaabaha kale markaas sida ciyaar ah marka u fiirino Sport Leipzig Qatar ayaa home si ah iyadoo away dadka garaacda kooxdan waa koox Qatar ah marka waxaan leenahay guudaan ciyaartani kooxdan ayaa badi karto kulanka saddexaad wuxuu noqonaa Apollon iyo Olympiacos Nicosia kooxdan ku qoran tahay sidoo kale labadan kulan iidan waxaan leenahay Apollon ayaa badi doonto guud ahaan ciyaartani sida u jeeda double chance-keeda kooxda kale $3.15 saaran kooxda $24 saaran marka isku awoodna maaha tan awood badan markasta waxaan leenahay tan ayaa badi doonto sidoo kale tan waxaan kaaga soo xulay Lorient iyo Stade Rennes u jeedaan France League 1 waa kulamada maanta la ciyaaraya qayb ka yihiin tan marka waxaan barnaamijkan ma aqaan idin soo gudbi hore idin baray in kale waxaan isticmaalay maxaan ku yiraahdaa wax yar half time wax la yiraahdo iyo full time ayaan isticmaalay oo labada dhinac ah marka waa tan isticmaalay tan oo ah kooxda total 2 ah labadan koox Lorient iyo Stade Rennes farqiga dhibcaha naftirkooda adiga 3 dhibic mise 2 dhibic isku jiraan Stade Rennes xoga yara adag laakiin waxaan isticmaalnay waxay tahay total 2/total 2 and 2.5 sida u jeedaan oo 1.9 saaran waxaa loo jeedaa half time koreeto iyo half time ka dambo iyo 3 gool macnaha half time kore inay badiso half time ka dambe inay badiso 3 gool ay ku badiso kooxdan Stade Rennes marka intaas ima muuqato inay ku badi karto half time ko tusaale half time koreeto haddii ciyaartan ay ku dhamaato eber haddii ku dhamaato wuna ku soo bixi doonto half time ka dambo haddii sidoo kaleeto wax dhali weysana ku soo bixi doontaa mid kale half time kore gool dhaliso Stade Rennes half time ka dambe xataa ay dhaliso laba iyo macnaha iyo eber la maro Soomaa
haddii marka saas ciyaarta ku dhamaato xitaa wuu naata. Mar walbaba muhiimadu waa inay half time-ka hore badisaa, half time-ka dambena ay badisaa, 3 goolna ay la timaadaa. Intaasna ima muuqato inay la imaan karto. Yaa war idin ku daalin. Tan afaraad waa Standard Liège kooxdan ku qoran tahay oo Belgium Champions League ka soo xulay. Tani marka Standard kooxdan ku qoran tahay oo koowaad ayaa waxaa leenahay Braga ama badis ayay geli kartaa inay badiso ama inay Braga gasho. Tan lixaad waa Bologna sidoo kale Italy Serie A kaga soo xulay. Bologna Spezia Calcio kooxdan ku qoran tahay marka Bologna yara adag waxaa leenahay iyadana Braga ama badis. Tan ugu dambeysa waa Lecce sidoo kaleeto iyo Salernitana. Marka Lecce iyo Salernitana Italy Serie A kaga soo xulay sidoo kaleeto iyadana waxaan isticmaalay half time iyo full time hatan naftirkeeda isticmaal sida ay la tahay Salernitana iyo watana iyo Lecce. Marka tan waxaan dhahaynaa iyadana half time koreeto waa Lecce iyo half time waa isku dhibco labadan si ay la tahay mise hal dhibco ma isku jiraan mise laba dhibco ay kala horeeyaan naftirkooda. Half time koreeto iyo half time dambe inay 3 gool ku badiso nooca leena ma suurtagelayso. Marka guud ahaan saaxiibayaal fikirkiina ku dara qodkina waa kaasa. Marka fadlan shaxda markay ku soo gaarto daawo oo fiirso dabcan khibradna ka qaado waxyaabo isticmaalin waxyaabo fahmi weysan dib ugu soo celi video kaaga soo sameeyay doona mahadsantahay insha Allah.